soo xulidda baarlamaanku waa awood ay leeyihiin odayaasha dhaqanka ee beelaha sida isimada nabadoonnada iyo caaqilada waxaase awoodu yeelashadoodu ay ku oodan tahay soo xulidda oo keliya ma aysan raacsiisna duljoogtayn iyo dabagal dambe toona baarlamaanka laftigoodana hawli waa u soo bixidooda haddiise ay ka kalsooni helaan mid waliba iyo hadba dhaqanka uu u tallima dhaadhaco dhug yeelasho kale ma badnaato sida la bartay qabka iyo isku qanacsanaanta bulsho iyo baarlamaan kasta oo cusubna bilowga waa caadi balse biladabadood baholyow la iskuma qabo daliil huwin galo dowladeed ma ahan wax la qariibsado amaba la yaabkeeda leh balse midda ahaatay wax lala yaabo waa isku heelanaanta horraanta soo dhiskooda iyo kala hayaanka bulsho iyo baarlamaan marka la hubsado heerkooda howlgudasho inta uu leeg yahay dadka taxliiliya arrinkanna waxay asbaabta ugu weyn ay ku odoroseen bilowga soo bixidooda in lagu saleeyo sifo liidasho kaasoo aan ka saan lahayn isku danaysi eex arrimo qabyaalad iyo in adeersi lana odafeeyo aqoontii indheergarashadii iyo u fakarkii ummadnimo taasina ay macanihii itijaah ka lumisay yuusuf abshir xisi yuusuf luule waa aqoon-yahan in badan u soo joogay xilliyo dad xulasho baarlabaan iyo doorashooyin ka dhacay puntland laga soo bilaabo kuwii bilowgii lagu asaasay puntland waxaana uu tilmaamayaa waxa udubdhig u ah in la waayo waxqabadyo badan oo laga sugayay golo kasta oo baarlamaan oo puntland oo midka haatan xasaanadu ka idlaatay uu ugu dambeeyo aqoondeeyay oo lagu saleeyay jiritaanka puntland markii la asaasiyey warbaldalkan aan difaacano ummadda kale aan leeshiino inaguna horumar gaaro barlamaan xulo nabadoonnada haynoo kale nabadoonnadii aan mas-uuliyadii la saaray nabadoonnadii ismada u gudbiyaan war maxaa taqaanaa waayo arag ma tahay dadka ma kala taqaanaa dalka ma kala taqaanaa islaam ma tahay aqoon ma leedahay waxun iyo waxaan makala sixi kartaa dadka wax ma geyn kartaa fikrad ma keeni kartaa horumar wax ma ka dhigi kartaa dhibaato wax ma ka dhigi kartaa dad ma kala hagi kartaa ummadii ma isu geyn kartaa ma nabdayn kartaa dadkaan ma hagi kartaa laguma soo xulin waa hubaal habka soo xulitaanka baarlamaanku inuu yeesho madmadowyo aan yarayn waxaana inta badan la isku raacsan yahay haddii dhismaha salka qalloocuu ka galo inay adag tahay qaybihiisa dambe inay qumaati u istaagaan weelkana waxaan ku jirin kama cuslaadaan waana maragmadoonto haddii aad magoolsan weydid masiirkaaga dad xulasho midho dhalkeeda inaad heshid maanta iyo maalmo horena aragnay taasi meesha ay ku biyo shubatay shaki kuma jiro geed fadhi wixii aad kala xishoon weydid golahana inaad la tegaysid waxaana oraahdaasi ay gogoldhig u tahay guracnaanta loo tiriyo habka soo bixitaan ee baarlamaanka siiba marka ay odayaasha dhaqan joogto taasoo sifaynaysa sirgacyada dhaca iyo saameyn ku yeelashadeeda mustaqbalka dambe ee ruuxa maqooradka ka sarmaseegtooba sida uu qabo cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane joojiyo habdhaqanka ay nabadoonnadu caadaysteen oo ah inay u saxiixaan shakhsiyaad mid iyo laba ka badan ama qof kasta oo ugu tago xubin doon ah mid golo deegaan iyo mid golaha wakiilada ahba waxaa caado noqotay in ninkii xil doonaya uu qado sharaf hoteel ku samaysto uguna yeedho nabadoonnada jifidiisa iyo kuwa haybta la wadaagaba dabadeedna codsi kadib saxiix loogu wada taago la yidhaahdo ninkaasaanu u doorannay xubintaa arrintaas sax maaha waxay sala ku haysaa musuq maasuq waana meesha uu ka bilaabmayo laaluushku waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa af wax cunay xishood inkastoo aan baarlamaanka hadda xilkoodu dhammaadka uu yahay iyo kuwo ka horreeyeyba aysan waayin eed musuq maasuq oofin la-aan howleed iyo arrimo kaleba misna waxaa jira ogaallo kale oo muujinaya awal horeba sifo musuq maasuq in aysan ka marnayn siiba xilligii dhiraandhirinta dhaqankooda yaaleed ay joogtay eeduna ay afaf badan leedahay arrino tahay wixii aad fashay iga filo cabdulaahi faarax waa abwaan waana qoraad daabacay buugaag badan oo kala duwan wuxuuna qabaa dhabtu inay tahay dhanna nooma fayooba dhacdhac gurashaduna ay gaartay odayaasha dhaqan oo dhowrsanaan loo filo dheeluguna uu halkaasi ka unkamo
waxaa lumay wixii la oran jiray cilmiga milgaha qaranka aan markii horeba la soo qaadan sida wadanka iyo wadaniyada in xildhibaanku yiraahdo odayaasha baan xoogaa lacag u geynaya kalsoonida odayaashan la imaanaya musharaxuna yiraahdo 66 kan dhowr iyo 40 ka iibsanaya waxaad moodaa in karaamadii dalka iyo dadka in lagu tuntay dawladnimadina in la gatay dalkeena in la gatay dadnimadina in la gatay damiirkeena in la gatay xayaala marka waa ceeb odaygu inuu noqdo faas xaabada qofka siyaasiga ah ku burbursado odayaashu inay noqdaan ceeb bay ina ku tahay odayaashu inay noqdaan xildhibaanku inuu yiraahdo musharaxiintan lacag ka urursanayaayo gurigan amaah laygu siiyo baawurkan amaah laygu siiyo 8 January baan bixinayaa waa ceeb weey arrin khatar weey arrintaas hadda way ka socotaa way jirtaa in hadda guriga baayacayno ilaa amaah laygu siiyo 2 bilood 3 bilood baa haray in ku hadda jiraan ay yiraahdaan lacag la siiyo beeshii si aan dib uga soo baxo in musharaxiintu suuq ay la taagan yihiin 66 kan iibsanaya dadka kale reer Puntland waxba kama rabo waray arrintaas waa wax gafko ah nolosha iyo karaamada iyo dadnimada iyo kuwa musharaxiinta laftigooda kuwa sidaas lehina ma istaahilaan ma dhicin mana dhici doonto in la arko mirihii ama basiirkii aad ku gurtay beertaada dhir aan ahayn inay kaaga dhalato mana ahan waxaad filato fardo inay geel dhalaan waxaana taasi ay duurxul iyo daliil u tahay adiga oo ku guuldaraystay dad xulasho habboon misna in damacaagu uu noqdo la tartan dunida kale dawladnimo hagaagsan horumar dacal balaaran ammaan dun adag iyo daboolidda baahiyeed oo ebyan cabdisalaam maxamuud jaamac salwe oo ah rugcadaa saxaafadeed ayaa sidan ku macnaynaya sida aan ka baranay khibradda nolosha suurtagal ma aha oo waliba waxa lagu tilmaamaa oo lagu tacriifaa waalida in aad ku celceliso tallaabooyin isku mid ah dabadeedna aad filato natiijooyin kala duwan suurtagal ma aha in uu qofi abuurto tintiin oo uu fisho in uu gurto cambe ama timir ama wax la mid ah wixii aad tabcato ayaa ku hor yaalla sidaas darteed baarlamaanka Puntland ee 20 jirka ah aanan lagu gaarin wixii laga filayay ee ugu horeysay labadii mabda ee lagu dhisay Puntland midna laguma gaarin siday ahayd laguma gaarin marka la eego wixii suurtagal ka ahaa Puntland haddii la fiiriyo taariikhdeeda haddii la fiiriyo logical mataqaan ay in geographical location keeda meesha ay ku taal haddii la fiiriyo xasiloonidii ka jirtay waqtiga haddii la fiiriyo dadkeeda mataqaan ay miisaanka ay leeyihiin markii waxaas oo dhan la isku daro wixii ka soo bixi karay oo natiijo ah ma muuqato Puntland waxay u baahan tahay wax la soo tijaabiyay oo meelo la mid ah Puntland iyo Soomaaliya ka dhacay in lagu celiyo oo waxaa kamid ah kaliya in la ogaado in dawladnimada ay ku jirto waxa la yiraahdo checks and balances oo ah in miisaan golayaasha dawladda ay ismiisaami karaan iskontarooli karaan isxisaabin karaan baarlamaanka haddii uusan ahayn mid gudan kara hawshaas oo marka horena dooran kara hoggaan u qalma ummadaas hankeeda inuu ku hago marka dambana kula xisaabtami kara hadduusan ahayn oo wixii hore lagu celiyo natiijada soo socota waa ognahay waa isla tan oo sii socota waliba ka sii darta si kastoo xaalahaadaba baarlamaankani hadda tagee wixii ay tareen iyo wixii ay tiigsan waayeenna waa taariikhan duugoobin iyo taalla dhigan oo aan qarsoomin tu muhiimase waxa weeye wixii tagay tiigsimaad ma leh waxaana ka farabuuxsi u baahan xulidda baarlamaan ee hadda loo weel qaaday taas oo aan uga hadlayno taladeeda iyo tubraaceeda habboonba warbixinteena kale ee soo aadan allana ha ka dhigo dhihidda taxliiliyaasha dhagaysigiina iyo dhigaalka daljirba kuwa ku dhacam dhaga furan oo aan awdnayn Cabditax Umar Geedi Radio Daljir Garowe